waxaa lagu tilmaamaa ciidankii Ilaahay waa niman noloshoodii quruxda badneed iyo dhaldhalaalkii dunida kaga jeestay dacwadda Alle. Jamaacatu Tabliiq sida ay ku soo bilaabatay markii ugu horeysay iyo sidii ay Soomaaliya ku soo gaartay waa su'aalo isku dabaran oo aan muuqaalkan kaga jawaabi doono. Waa xaraka suufi ah oo daba iyo dacar raadadkoodu uu gaaray maanta. Waxaan halkan kugula wadaagayaa 4 qodob oo ay muslimiintu ku jeclaadeen tabliiqa iyo sababta ay ku noqdeen kuwa ka fog dhaliisha halkii ay ku dambeeyeen iyo Sacuudiga oo argagixiso ku tilmaamay xaramkana ka xarimay. Sheekadan ayaan ku eegi doonaa taariikhdooda guud ahaan muuqaalkana sii faafi. Jamaacatu Tabliiq waxa la isku waafaqay inay yihiin koox diimeed u taagan faafinta diinta Islaamka taasoo aan la isku diidaneen habka togan ee ay dariiqadu u faafiyaan. Waa koox odayaal iyo dhalinyaro isugu jira kuwaasoo socdaal u gala sidii ay khayrka u faafin lahaayeen. Waxaa markii ugu horeysay la aasaasay sanadkii 1926 fikrad iyo curin ka timid wadaadkii weynaa ee Sheekh Maxamed Ilyas Alkandahabi ayaa lagu dhisay Jamaacatu Tabliiq. Waxaa halkaasi ka bilowday safarkii ay saayidiisu ahayd aakhiro jihaadkii culimada kuwaasoo loogu yeeray ciidankii Ilaahay. Waxay ahayd dariiqo islaami ah tii ugu degdeg faafin badnayd si dhaqso ah ayaa ay ugu baahday inta badan dunidii Islaamka. xilligan waa mid ka mid ah xarakooyinka waaweyn ee caalamul Islaam. Haddaba waxay isweydiin mudan sidee ayay Soomaaliya ku soo gaartay. qiyaastii inta u dhaxaysay sanadkii 1960 ilaa 64 ayaa la sheegaa inay jamaacadii ugu horeysay ay soo gaartay geyiga Soomaalida. waxaa ku soo hogaamiyey ama haddii aan si kale u yiraahdo Soomaaliya soo gaarsiiyey wadaadka Soomaaliyeed ee caalimka ahaa Sheekh Ismaaciil Cumbaale. dadaalka iyo dacwada diinta ee culimada tabliiqa waxa uu ahaa shakhsigii dhulka Soomaalida oo idil soo gaarsiiyey Sheekh Ismaaciil. waxaa baraarujinta diimeed ee uu dadkiisa soo gaarsiiyey ku soo hagaagay dad badan oo Soomaali muslimiin ah oo shaydaanku jidka toosan ee Islaamku uu ka weeciyey. Sheekh Ismaaciil isagoo ka hadlaya tabliiqa iyo hadafkooda waxa uu yiri midka muslimnimada sheegta ee aan salaada dukan ee taariika ah ama qaafilka ah sida uu masjidka u imaan lahaa oo uu salaada u dukan lahaa ayay ka shaqeeyaan waa hadafka koowaad. kan aan garanayn muslimnimada ee baadiyeysan oo aanan shahaadka loo qaban weli ee gaalka ah in xaqa loogu yeero waa hadafka labaad ee ducaada tabliiqa sida uu sheegay Sheekh Ismaaciil oo ahaa hogaamiyihii tabliiqa Soomaaliya. haddaba waxaan kula wadaagayaa 4 shay oo ay tabliiqu dheer yihiin xarakooyinka kale. tabliiqu waxay ka fog yihiin 4 shay oo maanta muslimiintu ay ku kala tageen: siyaasad, waxyaabaha ay culimadu isku khilaafsan yihiin, beenta iyo dooda. waxay mar waliba ka fogaadaan waxyaabaha kala geynaya ummadii Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee si aysan u lumin midnimada dadka. aasaaska tabliiqa oo xilligan laga joogo 100 sano waxay noqdeen mid ka mid ah xarakooyinka waaweyn ee dunida Islaamka. 2 sano ka hor dowladda Sacuudiga ayaa go'aan qaraar ka qaadatay jamaacada tabliiqa. maamulka Sacuudiga waxa uu guud ahaan dalkaasi Sacuudiga ka xarimay tabliiqa isagoona mar dambe ugu yeeray argagixiso. waa arrin ka yaabiyey ummadda muslimiinta ah guud ahaan. waxaa safar xad ah in maanta dunida meel kasta ay gaareen raadadkii jamaacada. haddaba adigu goorma ayaa kuugu dambeeyay ducaada tabliiqa maxaad ka aaminsan tahay? aragtidaada hoos nagula wadaag muuqaalkana laag saar oo sii sheer garee.